كفولحن أو بنات مدنا كفولحن إسلام مدنا كفولحن سومالي لان مدنا كفولحن بكرة وعوي تطبع يجوا في الرصاص لا تليمت والرصاص لا دعي سلاوجه وعنو سو jeedinayna oo shirweynuhu soo jeedinaya xukuumadda Soomaaliland iyo madaxda Soomaaliland iyo madaxweynaha Soomaaliland inta laabo sharciga waafaqsan laga qaado dambiilayaashii falkaas geystay lana soo qabto maxkamadda loo keeno. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلي أنا كما هذا المدني كما فرنا كلي وحوي إنه نراهضه شركه فريا شركه ويدي فريا كلي أنا وهوش أنت سأقولها أنت نواي قد أنت تكلم وحلاها قفوا هطوا وحقبتوا يهطوا وحقبان لبضبا كل دليل بولي كل أمان waxaan ku raacsanahay xildhibaanka ay ku horeeyay dawladdu waxay taas aan fadhinay xeerashaan soo goynay waxa weeyaan waa xeer dhaqameed inta hadii aan ka gudbo waxa weeyay shirkan laftiisu asaaskiisu waxa weeyaan waa shir nabadeed si aan ula dhaqanno beelaha xiriir nabadeed mid aan wada dhalanay iyo mid aan jaarnahay ma aha shir siyaasadeed waa shir dhaqameed سدا عدوى حقاته وحن عمبارين دلك كدعي سما سي أدق بانو عمبارين إسلام لماذا يكون تهي ديغان كي يكون تهي جارش يكون تهي دبينا مركو وحقليلو شيء قالوا لي سيد حق له إنه يقول مو يعني ما بدك دبينا شيء أبصر حيوان وقول للبيئة اللي ما كسويا ولا ويدوان إذا عدا وقرا هي محضر البيئة حيوان هذا وحرية يحاسوا محل البيت وحلال البيت يقول حنوك الحي قالوا حنعلي يوم سنة حنوك حيوان حنعلي الحي يوم سنة والبيت يبي نك سلي وحكوها الله سووا يتكلم يجي تحسين يفرح حالته تفكير زي تحسين يسكبينا ووحنا هلا هذا وحلا هذا كيسو يحاس كان يدين هو وعمل المينيا حيوان حقولي شقاقة حد عليه السماء هذا الجسم كلية شقاقة حد عليه السماء وحتى السبع البدالي قلت لك ما يقول لي يعني وقحونا يستوي خب العين حدوك هوي وعلى هاي مدحويني يصبحوا لي هلا صوبت تيجي على خويا كيف خويا مدحويني وكيفية وعيالي إلى هذا أمر يا سيدي مدحويني هاي ويجري إن عندما كهول قالوا واحد عنده فلاشة وكانوا بس كانوا عن تحسين يعني وهيبقوا مقطعين هذا في سويل جاي يحاس كاي وحنوه يعني وحنوه مقعي وحنوه حنوه مقعي يعني هذا في سبحان بالله عليه لكن تذكر هيك ولا خلاك وانا بريئة يا سؤال هذا الشيء ما وافقنا هاي وان بلد هاي أنا إنه كحون سكتنا ولا لا إنه هاي وارس للي waxaan kala tagay baan nahay dhulka ba kala go'ayo inaguna ma kala guur karayno xumaa walaha in meel laga soo warjeeso sababta ahayd in alla intii gabadha ka hadashay waan ku aqriyay laakiin bala saaf Allah ee badalayo iyo meesha la yiraahdo wuxuu ahaa Soomaal waxay isku jiraan 60 ilaa 70 kilomitir dhulka Soomaaliland laba meelood saas ugu magaciisa jiraan marka la yiraahdo degmada Gabiley ayaa waxa ku tahay wajhaalayo أما قبل كقبل وش هذا هالشيء على البضي معين لي لكن قبل كقبل اللي هي كلها صقوني ما كان السماء ما يحين بالله هنيك هذا سافة ما له كفاية البردان ومقعد ولا بدي قالوا كذا فوق هذا كان يروح النقطة يحاس كاين واقف النقطة ذي وحاقون أيوه حنوح العيان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بقول الصوت waxaan doonayaa halkan inaan aad uga xuso inaanu miisaan culus oo ka tirsan beesha reer Faarax Nuur wasiir Cumar Jibriil Faahiye haloo saaxiibo wasiirkii ugu muddada dheeraa oo ku yeesho deegaanka kiilka shanaad ee Itoobiya
waxaan aad u xusayaa allah u naxariistay marxuumiintii dhintay iyaguna wasiirada ahaa wasiir bashiir faarax kaahiye waxaan doonayaa kale inaan xuso wasiir cumar kaamil wasame oo ku magac dheeraa cumaragoon oo isaguna muddo badan ka ahaa wasiir jabuuti waxaan kaloo doonayaa inaan xuso wasiir faarax saleebaan faarax loobon oo isaguna ahaa muddo badan wasiirkii ay dowladda ku lahaayeen jabuuti waxaan iyagana la hilmaami karin beeshu inay tahay beeshii ugu barasaabada badnayd beeshu inay tahay beeshii ugu barasaabada badnayd gobolka awdal barasaabkii horreeyey waxaan doonayaa inaan xuso cismaan amiin allaha u naxariisto waxaan doonayaa iyo kale inaan xuso barasaab maxamed cabdilaahi cawaale qoslaye waxaan doonayaa iyo kale inaan xuso bashiir oo isaga laftirkiisu mar kale ka ahaa barasaab gobolka awdal wixii uu qabtayna cid badani ka markaati ahayd muddo dhowr bilood uu ahaa barasaabka gobolka awdal inta hay-adooda uu keenay waxaa kaloo xusayaa barasaab maxamed jibriil faahiye oo isaguna muddo badan ahaa barasaabka gobolka awdal iyo barasaabka gobolka saaxiil waayo hadday intaa taariikhda kaga tago marka hadalka waxaan doonayaa inaan ugu yeedho dhinacii ganacsatada cabdihaab ciiga axmed oo ku hadli doona tahay in lagu ixtiraamo hoggaanka ay u hayaan bulshada ee hoggaaminayaan taasaa loo baahan yahay inta la hoggaaminayaana inay raalli ku noqoto hoggaanka iyagu ay doorteen ee hoggaaminaya inuu waddo saxa ku hoggaaminayo inay raalli ka yihiin haddaanu waddo saxa ku hoggaaminayna inay yidhaahaan waddada aan soconnaa ma aha tii saxda ahayd ee tii saxda ahayd wataa taas maxay ku imanaysaa waxay ku imanaysaa in dadku ay doodaan in la wada hadlo in la sheekaysto in la shiro in kolba ajandaha laga hadlayo la turxaan bixiyo dabeetana wixii faa'iido ka soo baxa halkaa miiska la duubiyo inay qoraal noqoto inay documenti noqoto waxa halkaa ka soo baxa shakaa maanta aan fadhino waa inuu noqdaa documenti wixii ka soo baxay iyagaa la weydiinaya guda iyo dabadba waa in la isgaarsiiyo kuwa maanta iskuulka la dhigtaa la yidhaha yaryar iyo kuwa aan dhalan waa inay buugga akhristaan waxaan u malaynayaa hadalkayga inuu ku bilaabo inuu u badnaan doono guubaabo waxaana halqabsi ka soo dhigan doonaa meelo yaryarba ka soo qaadan doonaa ana isku soo horraysiinayo soomaali oo dhan ayaan mar afarre intaan u tiriyey maranku dirir la yidhaahdo maranku dirir ayaa waxaan dhexdaan idinka soo qabane waxaan idhi marxaladahay aadamuhu dhammaantood soo mareen miyaanad is oo dhan marnaba makaankeed kaga jirtaa maqaamkaad leedhiyiyo adoo maskabkaagu yahay miscirir aad seexatiyo maqaar kuu gogol noqdiyo mudhaha duurkood cuntiyo mulaaxaad diiratiyo xabagad budbuudsatiyo maraad neef qalatidood haddana uus miiratiyo kuwaas iyo qaar la mid ah adoo mugdigii jaaliga sidii u dhex maaxayoon cilmigu marti kuugu hoyeen adoo masnacaagu yahay hankool kadh maroora oon maxaadha samaysan weli adoo muurkaagu yahay hatiga dhabarkii murxoo dameermaad buu noqday mixiisu orgina ka tahay kismaayaa lagu rartaa adoo macaruusha iyo mahiigaankaba u nugul cudurro magantaada yahay adoo meherada ka dhigan sheekada malageed goolida muramo aan joogsanayn adoy majlisada dunidu macaawano kuu fidshaan masaka kuu qaybiyaan adoon muran kaaga jirin intaasood mara ka tahay waxaan isku kaa maraahay ma meedinka taabsan iyo lafahan milixdii gubtiya maxasta naanaabaysaa ciddee maamule haddaba murankuu ka taagan yahay soomaalay maranku tirin maxaad isku haysataaba horta waa maranku dirirkaa faaraxna waxaan leeyahay faaraxoo maranku dirir baa tahay waxaad isku haysataa ma jirtaa ha isku ilkabeeli taasi waa taa waxaa kaloo iyaduna jirta nin ciisaa la weydiiyey oday reermiyo ciisaa la yidhi war maxay daheelo ciiso wuxuu yidhi waxaan la helay reermihii siyaasad bartay iyo reer magaalo qabyaalad bartay baa bedilay buu yidhi waxaan leeyahay taasi innakana way ina saamaysaa
tukalaa ku dariyo cali tadhas allah u naxariistay afare yaruu tiriyeyba wuxuu ku yidhi beledada kuwii noo fadhiyey waa bashiya jiire bugtaantaba kuwii keenay ayaan baanta leedahay ma baryaa wax tari reer magaalkaa buruud odagay buushi waxaan u malaynayaa intaasi inaan midna fasir u baahnayn sidaa ay tahay inaan u liqno ciladeenna aan helno ka faa'iidaysanno horena uga kacno waxaan ku darayaa nin habar yoonis ayaa waxaanu isugu nimid imaaraadka markaasuu yidhi annagu haddaan nahay habar yoonis ninka laandheeraha taliyo waxaa la yidhaha heber kurxin male laandheeruba kurxin lagu yidhi ya kowdhe markaasaa haddaba annagu sidaa waanu ka duwannaho annagu caqligaan eegnaay codka ma eegnaayo waxa kuugu daliilo waa reerkaa dhan eegada guursi oday yaroo garta la yidhaahdo oo soo godan oon hilib lahayn oo magan allah u naxariistay suldaan garta allah u naxariisto ayaa baan oo cod yar ayaa noo taliya baan dee caqligun baan eegnaa annagu codka maba eegna baan war waxaan leeyahay horta taasina aynu iska ilaalino codka yaynaan eegin caqliga aan eegno taasina jiraye waa damiirku ha shaqeeyo qof walba damiirkiisa la xisaabto hadduu isleeyahay waxaasaad gabto waxaasaad maysa damiirkiisa hala xisaabto ilaahayga u toobad keeno ha hagaajiyo hadduu wax wanaajiyeyna wanaaggii ha ku sii wado intaana waan ku tegin lahaa anigoona cabsi haynin aan maaragtay oo sidii loogu talagalay u shaqeeyaan waa waxaan inagu waajibana waxaan ku guubaabinayaa inay dhallinyaradu gacmaha isqabsato mar walba oo deegaankaasi aad loo ilaaliyo odayaashooda iyo siyaasiyiintooda iyo dheergaradkooda iyo hooyooyinkoodna mar walba ay daba joogaan oy la shaqeeyaan oo wixii caawamo iyo hiiliyo hoobaha ay la garab taagnaadaan waxa aan dhalinyar ahaan cambaaraynaynaa falkii ka dhacay Seemaal ee dad aan waxba galafsan loogu laayay waxaanu leenahay dawladda waa inay ilaalisaa ballankii waa inay ilaalisaa suldaanka guud ee beelaha reer Nuur hadalkii uu farriintii uu diray oo ku ekeed 3 maalmood gudahood oo laba ay maanta ku laba tahay oo bariyo kaliya ay xarsan tahay waxaan mar labaad salaamayaa ka soo qaybgalayaasha shirka dib u xurashada Faarax Nuur wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh odan waxaad moodaa caafimaadka inay dhowr ebsreeji dhorisay yihiin walow aanay u shaqaynin sidaynu doonayno haddana waynu ka fiicannahay meelo badan oo kale runtii anigu aad iyo aad waxaan maaragtay ugu faraxsanahay in walaalaha ay maaragtay anigu oran maayo lana xisaabtama Cabdiraxmaan de waa nin weyn oo sanado hore soo jiray waa ka yidhaah lana xisaabtane anaga yaa lana xisaabtamay rubaa doonaynaa maantu baaj cala qaadano odayaasha looli waa ku talaya lana xisaabtamay baaj cala hal bilaabo kor loo socdo maanta dhaqaaqaynaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay runtii dhalinyarta beesha u soo socota